kulanti wanaagsan oo waxaan kula soo dhawaada TV-ga Universal qaybtiisa barnaamijka arrimaha bulshada oo todobaad walba xiliyadan oo kale aad ka daawataan. Todobaadkan waxaanu barnaamij ku eegi doonaa haddii Allah awoodda la yiraahdo raali gelinta madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka bixiyay tacdiyadii iyo dhiigii shariifka ahaa ee daarisay dowladda militariga ahayd ayadoo isticmaalaysay markaas hubabka qaybihiisa kala duwan haddana isla mar ahaantaas shicib birmageyda ah oo maarta ah dhiigooda shariifka lagu daadiyay magaalooyin waaweyn oo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya iminkana siyaasaddaas isbedeshay Soomaaliland loo yaqaan sida doontaba ha ahaato qof kasta oo Soomaaliya oo xaq darro lagu dilo waa qof ummadda Soomaaliyeed ka mid ah dhiigiisa shariifka in la xalaalaysto ama la daadshana waa arrin maaragtay biyo kaba dhibcaan ah inaysan arrintaas marnaba dhicin markay dhacdana aan faraha laga qaadin oo laga aamusanin. haddaba markii ugu horeysay ayaa madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrintaas uu raali gelin ka bixiyay iyo in la iscafiyo wixii dhacayna xalay dhalay laga noqdo isla mar ahaantaana laga garaabo dhibaatadii dhacday ee baaxadda weyneyd. dadka ayaa siyaabo kala duwan u arka laakiin waxaan rabnaa barnaamijkan inaanu ra'yigiina ku eegno sidaad u aragtaan. dadka qaar baa aaminsan inay tahay go-aan geesinimo leh oo xilli loo baahnaa yimid, qaar baa aaminsan in uu yahay go-aan wanaagsan laakiin lala soo dahay, qaar baa u arka mid aan waxba ku ool ahayn ama waxba ka jirinin. qofba siba u arkaa. adiga barnaamijkan caawa daawanaya sida u aragtid ayaanu jecelnahay inaanu ogaano, balse marka ugu horeysa aan idiin soo gudbiyo intiinii aan arkinin wararkeenii maanta hadaladii madaxweynaha uu ka jeeshay munaasabad ka dhacaysay magaalada Muqdisho. hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa sida tan: waxaa loo baahan yahay garawsha loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iska cafiyo. wax alla wixii chapter madow ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay waqooyi inaan cudurdaar aan ka sameeyno. inaan cudurdaar ka sameeyno, inaan raali gelin ka sameeyno dadkaas waalaheena ah intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan raahno taariikh xun bay ahayd wixii dhacay waa waxaan soo marnay. runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyay koonfur oo waqooyi ku duusha ma ahayn, wax qabiil ku salaysan ma ahayn, waxay ahayd system dawli ah oo markaas jiray. anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaar ka sameeyo oo raali gelintaas aan gaarsiino walaalaheen reer waqooyi idinkana ila qaadataan. dhanka kale dadkii iyaga naftooda qoryaha watay oo dagaalamayay iyaguna naftooda cudurdaar baa laga rabaa. waa hagaag waad maqlaysaan hadalladaas madaxweynuhu uu sheegay. waxaana ugu dambeysay uu yidhi dadkii laftigooda dagaalamayay laftigooda waxaa laga rabaa cudurdaar laakiin in laga garaabo dhibaatadii dhacday la iscafiyo dhiiggaa shariifkaa daatay darsi meel lagu qoro uu noqdo si dibnaba waxyaalahaasoo kale aysan u dhicin ummadda Soomaaliyeedna dhiiggeeda uusan u daadanin. meeshay doonaan ha ka soo jeedaan, waxay doonaan siyaasad ha aaminsanaadaan, laakiin qofkaas Soomaaliga dhiiggiisa inaan la daadanin. diyaaradda aeroboortka ka kacday inay shicib Soomaaliyeed duqayso horey umaysan dhicinin gaar ahaan Soomaaliya iyo caalamka intiisa kaleba intaan ognahay. hase yeeshee wixii dhacayba way dhaceen. maxaa laga baran karaa? arrintan madaxweynuhu uu keenay arrin xilligan ku habboon oo munaasaba miya mise waa arrin lala soo dahay say dadka qaarkood qabaan, mise waa arrin geesinimo leh oo u baahan in lagu dhiirado lagana midho dhaliyo la ishor fadhiisto wixii dhacayna darsi hoosta laga xariiqo. khadadka teleefanada ayaan idiin furayaa, ra'yigiina ayaadna ka dhiibanaysaan insha allahu tacaala meel kastoo aad joogtaan. sidaa u aragtaan hadalka madaxweynaha Soomaaliya oo maanta sheegay oo madaxweynihii u horeysay horey u sheegay asagoo waliba xilka haya arrintan yiri cid ugu horeysana garan maayo oo si publiga arrinta u tiri. haddaad joogtay xilligaas dagaaladaas ay dhacayeen dowladda militariga ay darawalka ka ahayd maxaad ka xasuusataa dhibaatadii iyo tacdiyadii ummadda Soomaaliyeed barmagedada ku dhacday? maxaase laga baran karaa? raali gelintaanu ma u qalantaa ma tahay bilow cusub oo wixii hore ka duwan? bal aanu eegna ra'yigiina. waxaan ka codsanayaa inaad TV-ga iska baktiisaan saan isku maqalno, saan ummad badan fursad u siino oo ayagu markaa ra'yigooda ay u dhiibtaan.
haddii laakiin ismaqli weyno halo ood ku waalatid waanu kaa gudbaynaa maxaa yeele waqtigaa inaan kaa lumina dooni mayno annaguna ma hayno mid naga luma khadka u horeeya halow soo dhowo walaal magacaa si wacan walaalo waxaan kasoo hadlayaa somaliland gaar ahaan gobolka saaxil aad baan kuusoo dhaweynayaa t v-ga iska baktiya ama ka yara fogo adoo mahadsan haye waan iska baktiyey walaal magacaa cami magacayana sahal maxamed carsan aad baan kuusoo dhaweynayaa waxaan kuu sheegayaa walaalo horta tani mid in badan ayuu inuu ka jawaabo ama looga fadhiyay soomaaliya isaga iyo madaxdii ka horreysay ayay ahayd waa ko uu maanta ka hadlay madaxweyne farmaajo hase yeeshee iminka lafteeda waa wax meesha taallay waana wax soo dhaweynaysaa arrintii hore ee qaraaraatay ama lagu kala kacay ama shirarka hore ee caqabadaha ku noqon jirtay waa wax macnaha waa ku soo celin kartaa garta waxaan ka jawaab celinayaa laakiin su-aal cudurdaar kasii dhigto yidhi qolyihii dagaalamayay laftooda iyagu waa inay cudurdaar sameeyaan kuwa cudurdaarka uu leeyahay ha sameeyaan waa kooxii la odhan jiray aslam ee marka waktigaa dagaalamayay wuxuuduna macnaha soomaali dumin lahayn dad isbadbaadinaya lahayn kuwa la rusheynayay bayna ahayn naf baanay bideen sidan kan inay qori qaataan ama dagaalamaanna way ku kaliftay nin faras dabadii ka degay meel ka toobombi waayey gartay walaal saasaan kusoo gaabinaya insha allah hadday khadka uga baxaya aad baan kugu mahad celinaya thank you halow khad kaloo ku xiga halow asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal soo dhowow magacaha xaggeesa joogtaa walaal waxaan joogaa switzerland waxaan doonayaa barnaamijkan inaan kelmadeyda ka dhigto aad baan kuusoo dhaweynaya jaamac baa la yidhahdaa walaal jaamac salaam baa la yidhahdaa soo dhowow jaamac haddii aan walaal kelmadeyda ka dhigto sidaan u arko waxa weeyaan horta madaxweyne horta kelmaduu ku hadlay maanta waa wanaagsan waa kelmad wanaagsan bay ahayd runtii kasta oo dee arrinkan barnaamijkan dee ay hore u arkay dadkan raaligelin la siiyo wixii dhacay la ogaado hadday tahay siyaasiyiin iyo hadday tahay shacab anigoo kasoo jeeda somaliland wixii dhacayna goobjoog u ahaa dadkii qaxay ee xabadda ku dhacaysay ee diyaaradood duqaynayeen ee guryahooda dumeen dee ehelkiisii iyo walaaladii ku waayey aan ahaa haddana yacni 30 sannadood ka bacdi qaali noqda maanta horta waxa weeyaan waan soo dhaweynayaa horta kelmadda laakiin waxaan qabaa shacabka inkasta oo aanay jirin ay xukuumad ahayd waxaan sameeyey dad shacaba aanay ahayn koonfuri waqooyi kusoo duulin waqooyi koonfur ku duulin oo waxana ay xukuumad iyo nidaam ay ka dhaceen haddana waxay ahayd dadka waxgaradka ee bulshada shacabka iyo siyaasiyiinta inay hore u gartaan tan oo ay ka garaabaan oo 30 sannadood wixii dee anagu aanu lahayn war waxbaa nagu dhacay war waa nala xasuuqay war dhibta nala garawsada aan dee nala ka qaadan runtii waan soo dhaweynayaa laakiin waa su-aal yacni aada iyo aada waa wax u daahadoo dee imikuun dee yimi laakiin jaamac inaan laga jawaabinin oo raaligelin laga bixinin oo aan hoosta laga xariiqinin oon la oranin shicibkan markaa waxay joogeen waqooyiga hadday koonfurta joogi lahayn iyo hadday galbeedka joogi lahayn marnaba aysan dhicinin dowlad inay layso shicib soomaaliyeed oo birmageyda ah oo la yidhaahdo wixii dhacay waa ka xunahay in laga aamuso oo cuqdad iyo xumaan la kala qaado loo sii kala fogaado maysa keenayni ha waa lagu kala fogaanayaa runtii waa run dee taan ka hadlayaaba waa taa in lagu kala fogaanayo waan leeyahay dee garawshiyuhu mar hore u ahaa inuu dhaco runtiina aad baanu dadka walaalaha ee koonfurta uga sugaynay kelmadan in badan in la yidhaahdo naloo garaabo in badan baan uga sugaynay laakiin nasbi xumo may dhicin laakiin haddana wixii wanaaga waan soo dhaweynaynaa wixii wanaaga ee magaranaysaay waan aad baan soo dhaweynaynaa wixii wanaaga ee imikaba waan soo dhaweynaynaa runtii laakiin waa waxaan hore dee ugu baahnayn kelmadan inay timaado waa hagaag markii dagaalkaas dhacayay xagee baad joogtay adigu waxaan joogay 88kii markii dagaalku dhacayay markii diyaaraduhu duqaynayeen markaan Ethiopia u qaxnay caruurihii afka lagu qaaday waayeerkii kariyoolaha lagu qaadayay
diyaaraddu ka daba imanaysay duqaynaysay dhaawicii laga daba imanaya la duqaynaynta halkaasaan joogay aad baan kugu mahad celinaya qayb qaadashada barnaamijka iyo sida hufan ee aad usoo gudbisay ra'yigaaga saliimkaaba thank you mahadsanid muwaadin goob joog ah waa hagaag layn kaloo ku xiga halow halo ahlan wasahlan walaal asalaamu calaykum walaal salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow waan dhawey walaalo waxaan rabay inaan xoogaa ka yara hadlo maxay haystay arrimaha taagan maanta uu dee madaxweynahaas ka hadlay horta waa mida walaalo arrintani maaha dee wax hadda wakti cusub waa 30 sannadood bay dadkan sugayeen nin mas-uulo intu meel istaago kelmad xataa raaligelin yar sameeya dadka xataa yacnihii la dareema dhibaatadii ku dhacday 30 sannadood wixii la sugaya maanta inuu xitaa maanu arkaynin anagu haddaanu shicibkaa nahay xataa wax niyad ah oo uu madaxweynahaasi maanta uu maxay hatay ku dhawaaqay sidee niyadiisa ku ogaatay waxa ku jira waxaan hadalkiisaad ka dareemaysaa weli hadalkiisa waxa ku jira caadifadii walaalaha reer waqooyi maxay hatay raaligelin meesha raaligelin ma taale dad dhan baa ku dhammaaday oo lagu xasuuqay ma garatay walaalo arrintana maaha waa 1988kii wax dhacay waa 30 sannadood bay ku dhowdahay marka maaha sheeko yaroo inta halkaa la soo taago raaligelin dadka laakiin isagu wuxuu mas-uul ka yahay hadda xilka uu hayuu mas-uul ka yahay 15 sano ka hor madaxweyne muusan ahayn mas-uulna muusan ahayn maqaamka hadda uu joogo marka hadduu hadda isagoo xilkii hayay yiri war wixii xilka mashalay uu qabtay inta sannadood bisoo qodiisa fadhiyay waxaan ka hadlaynaa madaxweyne Soomaaliyeed oo xil hayay oo isagoo xilka fadhiya yiraahdo war wixii iikaada walaal waa isla qaybsanay insha Allah fursad baan ku siinay in asaga xilka haya uu yiraahdo war aan ka garnaqano dhibaatadii ku dhacday dadka Soomaaliyeed walaalaheena waxay ahayd wax fool xun raaligelin laga bixiyo hoosta laga xariiqo cid asaga hortiina tiri aysan jirinin maysan ka fiicnayn 30 kala sano oo dib hadana loo aamusnaado 60 sano isku gaadha markaa walaalo anagu hadda taagan hadalkan hadda taagan digashaan u aragnaa anagu haddaan reer Somaliland nahay digashaan u aragnaa raaligelinna uma aragno umana aragno naxariis iyo naxdinna la ka naxayo marka maxaad jeclaan lahayd inuu sameeyo bedelkeeda hadda arrinta uu yiri kadib anagu dadkaa talaabsaday maya madaxweyne farmaajo ii kaada walaal madaxweyne raaligeliya maba u baahnin raaligelin ma taalo walaalo caloosuma taala gartay waa mahadsantahay walaal ra'yigaaga weeye oo kugu tixgelinaa thank you mahadsani waa hagaag khad kaloo ku xiga haddaan u gudubno halow السلام عليكم عبد العزيز. السلام ورحمة الله وبركاته. سولو ولا؟ والله الوادو هاي وعبد السعيد والمقدسة كنا يعني حمر أهولي بقى. وحقاق وقصود وين حلو دنبي كوتا هاي شرف بينوتا إن هذا نسوق على حلو قاعد دنبي برنامج كان لسه عتيد ما حد جعلان الله هذين التراهدين ما حاسك عقب بحي هذا الذي نسود ديني مدحويني محمد عبد الله فرماجو يمانتا يودبعتدي كذا عذي أيتيدي هرجيسة برع يمقالون كلام. هذا حفيظه القرراكسية يتيجي البس لما أنت مش شغالها بقى فكر كي قاعدين نقول صدق مدحوينها ضروري يورا الجنسي وكبح كي حسن قاس كذا عي وقوي بري وحنا ليه هي ومن وضحناي لكن أيضا شراكيشي كدم بيسي أما كله بلوها حمر يمحتوي الجوجان إن الجن ولا بحنا اللي هذا أما كيد كأها يحسو قاسي مد وعن كمان سماعها ذات ولا لين تيجي قوي علينا عيال حمر أنا عيال حمر أنا وحواي أرنتاس وحواي مسود وين الجن أنا كوكنا عنا معها تراكي كله بلوها هذا على صوق أبطو كمان على سوق استاجيو مركز وقنع كنا marka waxa leedahay wixii ka nool ciidamadii ka qayb qaatay dilka iyo dhibaatada inta leeg ummadda Soomaaliyeed lagula kacay barnaamijyada waxa leedahay intooda nool waa in maxkamadda soo istaajiyo saas oo aragtaa aad in la soo istaajiyo Morgan joogo hadda maxkamadi guulwadan la yiraahdo hadda oo kamid ahaay ragii nabad loo xil saaray ii sheego waa gudiga qoy baliye koonfur nin kamid ahaa joogo oo waa sax way dhahay dagaalkaas oo qaaday walaalkan marka ciyaal xamarna anaga arintaas ma faraxsan
وقرتي أدبن كوما عليا أديكو عيال حمرة أو رأيي سليم كسوق بني حق بقول هذا هاي برزت كلا إنه يجنا الرأي جوده يسدي واركان لين كلو كحي قالوا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة والله عبد الحفيد وعمر عبد عاطف افريقيا حقيقة جوك عمر كوفر افريقيا. أدبن كوسو دوين عمي والله عبد الحفيد aad baa mahadsantahay barnaamijka arrimaha bulshada mar walbana waa kaala qayb galaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay maanta madaxweynaha horta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane farmaajo hadal aan macnaha maanta aan laga filayn buu horta si fiican ugu dhawaaqay oo aysan ku dhawaaqin madaxweynayaashii hore aad baan ugu hambaleynayaa dadkana waxaan u sheegayaa raaligelinta uu madaxweynaha uu bixiyey iyaysan u arkin macnaha in la raaligelinayo macnaha dadkii macnaha dhibka gaaray keliya waxaa dadka wadabka wada gaaray haddii la dhahaa muqdisho iyo xamar labada muqdisho iyo hargeysa dadka dhibka wada gaaray talis baa meesha ka talinay dadka inay u fahmaan saas dowladdii hore haddii ilaa yidhaha maxamed siyaad bare ee taliga ahaa ayaa macnaha dadkii saa u gashay dadka inay saa u fahmaan baa la rabaa shacabka labada dhinac way isaaminsan yihiin marka dadweynaha inay saa u fahmaan baa fiican aysan u fahmin raaligelinta madaxweynaha uu bixinayo inaysan u fahmin mid la raaligelinayo walaalaha reer hargeysa keliya marka waxaa leedahay haddaan ku fahmay dhibkii soo gaaray walaalahaas annagana wuuna soo gaaray haddaan nahay reer koonfureed maxaa yeelay walaalaheen baan u daqranaya ujeedada masaasa aad iyo aad cabdixafiid saas inaan kuu fahmay aan u arkay waa mahadsanta qeyb qaadashadaada guuleysa thank you waxaan u gudbaynaa khad kale oo ku xiga haddii ilaahay yidhaahdo halo asalaamu calaykum salaam waraxmatullah waa kuma ninkaas magacaygu waa maxamed cali baa la dhahaa walaal waxaan ku noolay waddanka sweden soo dhowo maxamed horta walaalo waxa weeyaan way fiican tahay inuu mataqaanaa uu fikirkiisa madaxweynuhu soo bandhigo laakiin waxa weeyaan dadku waxay ku cafi karaan ama mataqaanaa muddo 30 sano la joogay ilaa haddana ilaa waqtigaa dhowr madaxweyne ayaa kala bedelay oo mataqaanaa xilalka soo qabtay marka cid soo hadal qaaday oo mataqaanaa dadkii shacabka ahaa ee waddanka Soomaaliland ku noolaa ee dhibka loo geystay xilliga diyaaradaha lagu duqeeyay mataqaanaa sida xun loo xusuuqay waxte mataqaanaa ka tacsiyay oo hore oo fikirka keenay horta ba yaraata ma jirin midda kale waxa weeyaan saraakiishii ku lugta lahaa ee dadkii waxaa fulinayay dad badan baa ku nool oo weliba aan habeen dhaweed aan arkayay gabadh ka hadlaysay meel home cable TV mid nin qaar saraakiishii ka mid ah oo Mareykan jooga jira oo ilaa imikana ku diganaya shacweynaha Somaliland marka dadkaas laftigooda ku diganaya ilaa imika aan haddana mataqaanaa tallaabo sharci laga qaadin in sharci lagu soo dhaweeyo ayaa habboonaan lahayd markaas ayay waanta iscafiintu iman kartaa baan silay anigu laakiin ma kuu muuqataa in bilow cusub ay tahay in madaxweyne isagoo xilkii haya yiri war wixii dhacay waa in laga garnoqo wax loo dulqaadan kara ma ahayn dhibaatada intaa leegoo dhacday dabadeedna qaybaha kale loo gudbo oo processkaas la maro hadday ahaan lahayd iscafis iyo hadday ahaan lahayd dadka aad sheegaysa iyo kuwo ka horoo la sheegay iyo kuwo kaloo soo socda oo ayagu qayb ka ahaa tacadiyadda intaa leeg in markaa maxkamad la soo istaajiyo walaal waa sax horta waa fikir wanaagsan mar walba iyada waxaa jirta iyaduna haddana hawshaas ay tabanayaan oo ay dadkii dhibaatada iyo dhaawacaas soo gaara ay tabanayaan haddana in la yidhaahdo oo dowladda Soomaaliya ay tiraahdo dhaqaalahan ka xidhaya Somaliland oo ay mataqaanaa haddana digasho keento dadku way sii kala fogaanayaan laakiin isku soo dhawaansho dadku inay helaan oo waxyaabo badan ay mataqaanaa ka tanaasulaan dowladda Soomaaliya haddii ay rabto xal isku soo dhawaansho iyo walaaltinimadii iyo wanaagii hore iyada oo mataqaanaa yaama la isku darsanba laakiin wanaagii iyo walaaltinimadii iyo mataqaanaa iscafintii dadka Soomaaliyeed inay calooshoodu ay meedhanto waxay ku xidhan tahay kolba mataqaanaa tallaabada ay mas'uuliyiinta siyaasiyiinta ee kursiga maanta jooga ay mataqaanaa sida ay dadka shacabka mataqaanaa ay kolba u wanaajiyeen ama wajiga u dhigaan ba wala ku fiican tahay aad baan kuu mahadcelinayaa ra'yigaaga khadadkoo buuxa awgeed baan qof kale fursad siinayaa sidaas oo kale ayaan jeclahay usoo gaabisaan si aan ra'yi badan u aruurino ummaduna fursad ay ugu hesho inay hadlaan walaal dhamayso khad kaloo ku xigaalo
cod ka hadlaysay honkem t v nin qaar saraakiisha ka mid ah oo maraykan joogaa jira oo ilaa imikana ku diganaya shacabweynaha halo walaal khadka telefoonka ee tv-ga iska baktiy fadlan ilaa imika aan haddana mataqaanaa tallaabo sharci laga qaaday hagaag laynkaas wuxuu dhegeysanayaa qofkii ka horreeyo wacay awgeed saa awgeed isma maqlayno fadlan aaladda naga dhegeysanaysaan iska baktiya waxaad daawanaysaan tv-ga universal qeybtiisa barnaamijka arrimaha bulshada waxaanu eegeynaa hadaladii maanta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka yiri munaasabad uu ka hadlayey ee garsoorka looga hadlayey uu yiri wixii dhacay waa inaanu ka garnaqno waa in wax laga qabto waa in laga raaligelin laga bixiyo dhibaatada ku dhacday shicibka soomaaliyeed ee walaalaha ah waxaa kaloo xusid mudan shicib soomaaliyeed inaysan islaynin dowlad militariya ayay ahayd waxaa wax leynaysay sidaa awgeed koonfur iyo waqooyi isku soo duulay iyo shicib soomaaliyeed oo iyagu isku soo duulay oo isleynayay ma ahayn arrintu mararka qaarkood waxaa arkaysaa dad sidaa u dhiga ayagoo isku dayay inay dadka sii kala fogeeyaan waa hagaag layn kaloo ku xiga halow 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 waa hagaag khadkaas ima maqlay for some reason halo halo waa ku maqlaa walaal walaalo waxaan rabaa ana inaan ra'yigayga jirto maxamed cali baa la yidhaahdaa la dhamaan jooga ay maxamed soo dhow cami cabdixafid waan ku salaamay aad baan kugu mahadnaqayaa barnaamijyaada qiimaha leh haddii aan anigu ka geysto ra'yigayga dhalinyaro midhan baa hadlaysay baan u malaynayaa anigu nin weyn baanahay soomaalidu waa iswada disay meel walbana waa la iska xasuuqay koonfur iyo galbeed na waa la iska xasuuqay laakiin kama soo horjeedo in cudurdaar la bixiyo oo la siiyo somaliland laakiin waxaan dhihi lahaa anigu war meesha ha lagu daro bartilmaameedka la samaynayo haddii hadda la raaco oo la yidhaahdo yaa wax dilay yaa wax qabtay meel walba way gelaysaa boos walba way tegaysaa guri walba way gelaysaa ama waqooyi ha aado ama koonfur ha aado alaaya tacaala waxaan soo dhawaynayaa cudurdaarka uu farmaajo bixiyey way ku habboon tahay laakiin yaan la taraarixin oo aan halkaa la dhaafin sababtu waxay tahay soomaali waa isdishay guri aan 200 laakiin maxamed aan halkaa kaa dhex galo kama hadlayno laba qoys oo ceelbiyood ama balli ama xoolo kala dhacay kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa dowladdii dadkay difaaci lahayd ayadu rushaysay oo laysay baan ka hadlaynaa markaad tidahda soomaali baa islaysay waxaad moodaa inaad hoos u dhigaysid tacadiyadii dhibaatada dhacday oo berita inay soo noqoto laga yaabo haddaan laga hortegin oo meel looga soo wada jinsanin maya walaal hoos uma dhigayo aan tilmaamo laba qoysoo isdishay kama hadlayo soomaali waa isdishay baa tiro laakiin maya soomaali waa isdishay waxaan ka wadaa sibil dowladda lafteedii berigii ay jirtay waqooyi waana laga horreeyey waana laga dambeeyey marka laakiin waqooyi waa run diyaaradana waa lagu rusheeyey dadna waa la laayay iyaguna wax badan bay sameeyeen laakiin cudurdaarka kama horjeedno absolutely taa anigu kuma soo bucnin aan ka horjeede waxaan diidayaa uun in la balaaqo weyn la sameeyo oo walaaladana heer waqooyi cudurdaar hala sameeyo maxaad ku diidaysaa qofkii dadkii dhibaatada qeyb ka noqday oo dowladdii militariga ka mid ahaa oo nool hadday joogaan muqdisho hadday joogaan iyo hadday hargeysa joogaan iyo hadday baydhabo joogaan iyo hadday london joogaanba in maxkamad lasoo istaajiyo jiilka cusub uu ogaado ninkaanu dhibaatadaas inuu qeyb ka ahaa ummadda soomaaliyeedna aysan yeelaynin in dhibaatadaas oo kale loo geysto dabadeedna qofku iska noolaado very good cabdixabid ma diidani laakiin hadalka wado waa ku maqlaa si fiican laakiin hadalkayga waxaa ku jiray walaal haddii arrintaa la bilaabo kuwa heer waqooyiyaa la helayaa oo laayay dadka markii la leynayay puntland markii la leynayay xamar oo jooga oo hiirow ah ma rabin waxaa inaan sii dhex galo oo heer waqooyi halkaa u kaadi
haddii uu reer waqooyi yahay oo wax dilay iyo hadduu koonfuri kasoo jeedo oo wax dilay macnuhu meeshuu kasoo jeeda maha qofkaanu dembi buu galay haddii nin reer waqooyi uu yahay ninka dembiga galay maxkamad in lasoo istaajiyo kan koonfurtana lasoo istaajiyay maysan ahayn maya way tahay laakiin magac dhow baa mar dhaweyta dhacayay taasaan anugu aad baa umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaya qayb qaadashadaada iyo ra'yigaaga aad saad noola wadaagtay thank you khadadka teleefonka kale u gudubna halo السلام عليكم ستين aad baan u wacanahay iska waran adigu مغيسان si wacan السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله شغل دنيا إنجليز كان بيجينا هاي basically like I'm good at arts and I'm good at construction and you're on the wrong show young man have a nice day وهاجاك لين كلا جاوب من هلا السلام عليكم السلام ورحمة الله سولو وكم من كاسو عبد الرحمن قيس ويان ولا أدب كو سلامية انت عين لما ذا هو كو سمرنا عبد الرحمن سولو نيو أدب ما سنتين هوان داوان لي قطبتي مدحوينها انترفيوغي كدن بيي انتو بو حنور كان قيبتان رالي قلنت بوحدو كبحيي ها تميت صور راكتي ومدحدي هوري أنا كمقل but it's never too late wadamada Mareykanka iyo Yurub meelaha aynu joognay qabowga inagu dila ayay ka dhacda dad walaalo ah oo cid kaleentood ay dhibtan ay geysatay oo dadkii hadda iga horeeyay walaalihii koonfur yani waqooyiga ka soo jeeday ay ku hadlayeen hadallo aad u wanaagsan oo qurux badan oo qiimo leh badan ay ka qaateen laakiin hadalka waxa ku jiray inaanu ahayn dawladda hadda jirta tii ka horeysay mid ka sii horeysay aan ahayn dhibaatadii meesha ka dhacday cidii geysatay aysan ahayn waxa ay sheegeen shacab ku duulay inaysan ahayn oo ay isku soo duuleen laakiin ay ahayd dawlad ama xukuumad markaa gardarrada cad geysatay iyo rushayntii iyo dhibaatadii ka dhacday same question ayaan weydiin lahaa Soomaaliya oo intaayo dhibaataha ka dhacday oo waliba koonfurta aad iyo aad u baabi'iyeen cidna apologize la iskama sii waxay ogaadeen in walaalo isdila ay yihiin walaalaha waqooyiga ka soo jeeda waxaan jeclaan lahayn haddii ay qaataan apologize-ka raaligelinta iyo wax walbo maaragtay ay ku qancayaan sida madaxweynaha mar hore uu sheegay inay nala qaataan aad baan usoo dhaweyn lahayn oo ay yidhahdaan waxa baan ku qanci lahayn oo kaleentood maadaama dadku ay yihiin dad aad u walaalo ah cabdixafiid waxaan kugu darayaa hadda waxaan fadhiyey goob lagu qaxweeyo dhammaan waxa fadhiyey waxay ahaayeen guud ahaan Soomaali weyn bay ahayd ama waqooyiga ka soo jeedaan ama koonfurta ka soo jeedaan dad kala go'an oo kala luuqada oo kala kalara ma ahin dhibaatada meesha ka dhacdeen mar labaad waxaan jeclaan lahaa walaalaha koonfurta ka soo jeedaan ugu horeeyo in apologize-kaas ay naga gudoomaan walaalaheena waqooyiga Soomaaliya waa gartay laakiin haddii aadan adigu iyo dad badan oo koonfurta ka soo jeeda aysan qayb ka ahayn tacadiyad iyo dagaalka dhacay maxaa adigu raaligelin ka bixinaysa walaalow raalli ahaanshuhu mar waliba qofka ama ka gardarnaayo ama ha ka gardarnaan hadduu walaalkaa ku qancayo hadduu walaalkaa midnimadiisa aad ku helayso Soomaaliya oo iyadoo dhama dhowr iyo 20 milyan ah wax aad u qurux badan weeyaan waan jecelahay gardarrada inaan qaadano koonfurta hadii aynu nahay waayo ma jecelin far kale oo inaga sii maqnaata labo gobol baa inaga maqan oo aynu jeclaan lahayn inaanu helno marka awood uma lihin walaalo afarta iyada meesha wada joogtay inay sii kala go'aan marka waan qaadanayaa gardarrada oo kulay ayaguna ma aysan dhihin waad gardarantiin oo koonfurta waadna gardarraysteen ma aysan oranin xukuumaddii bay wax ka tirsanayaan waxaan ku weydiiyey su-aasha waxay ahayd master qoys waxay ahayd shicibka Soomaaliyeed ma aha dadka islaayo inta soo duulay shicibka la baabiiyey waxay ahayd dowladdii military ahayd eedaasna ayada iskale marka inaan shicibka la isku dhufanin oo la iska horkeenin oo laba walaalaha wada dhalashay aysan isku nicinin waxaysan labadooda midna geysanin oo mid kale ay mas-uul ka ahayd waa kuu mahad celinayaa thank you niyadaada wanaagsanna waa wax lagu faraxsan noola qaybsa thank you lain kale ku xiga halo hello 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 أهلا وسهلا ولا سولو واكم مقلا ولا السلام عليكم السلام ورحمة الله ولا لو waxaan rabay inaan ra'yigayga ka dhigto aad baan ku soo dhaweynayna fiican anigu waxaan oran lahaa
maaragtay madaxweynuhu ku saxsan yahay inuu raaligelin bixiyo waana wanaagsan ummaduna waxaa fiican inaan wax walba xagga xun laga eegin maaragtay siday tahay loo qaato dhibaato way dhacday Soomaaliya dhan kasta marka maaragtay in caadifad dadka qaar qaado wixii la sii kala qodqodo oo Soomaali la sii kala geeyo ma fiicna ninkani raganimu muujiyay wax inta la sugay buu ka dhawaajiyay waana soo dhaweynaynaa anagu aad baan kugu mahadcelinayaa thank you qayb qaadashada sidoo kale walaalahay waxaad daawanaysaan barnaamijka arrimaha bulshada oo aanu ku falanqeynayno hadallada maanta madaxweyne Farmaajo magaalada Muqdisho uu kaga hadlay oo munaasabadu joogay uu ka hadlayay oo uu raaligelin ka bixiyay tacadiyadii iyo dhibaatadii ka dhacday gobolada shaqooyiga xilligii dowladda militariga ahayd dad fara badan oo Soomaaliya naftoodii iyo maalkoodii iyo ehelkoodii iyo qaraabadoodii ay ku waayeen diyaaradihii iyo taangiyadii ayaga difaaci lahaana ayaga loo isticmaalay in raaligelin laga bixiyo haba soo daahdeen mooysan ka wanaagsanayn inaan marnaba la acknowledge garin dhibaatadaas khadka telefoonka intaan u gudbinin waxaan fursad siinaynaa xayeysiinta global net laakiin telefoonada isku noqonayna don't go away daawasho wacan When I met the Ma'alin, straight away I knew that he is someone with a lot of credibility, with a lot of people that he managed to get to very far places. Some of those people work in 10 Downing Street, some of them working in Parliament. Global Net aniga waxay siisay practical skills oo shaqooyinka IT-ga looga baahan yahay. In terms of the interview, it was very forward for me. The amount of help that I got from Alan and the students at Global Net. qofkii la yaab uu noqon markuu laho delivery iyo self employee oo ku jiro kale oo heer xafiis fadhiisanayo ama IT noqonayo waligaa lagama walwalo qofa diinta islaamka inaa muujiso ha ka cabsanin ilaahay wuxuu ku karto waa helaysaa. That 1 year, less than a year, I studied here, Global Net. Was 10 times better than in Wadida University. وهاجاك دي waxaan ugu noqonaynaa khadadkiina telefoonada hase yeeshee haddaad doonaysid IT-ga inaad ku takhasustid ama wax ka baratid hadday wax kaaga bilaaban yihiin iyo haddii aad dan weligaaba halow computer aadan ku oraninba Global Net iyo Macallin Cabdulla ayaa ka qabtiraya kumanaan arday oo Soomaaliyeed ayuu soo saaray oo isku xafiisyada ugu sarreeya dalka Ingiriiska shaqeeya khadka telefoonka haddii dib ugu noqono iyo arrinta raaligelinta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tacadiyadii ay geysay dowladda dhexe ee Soomaaliya siyaad barre uu hogaaminayay khadku xigaalo halo salaam soo dhow hore u gudo galo magacaaga oo waa maxay ra'yigaagu see u aragtaa raaligelintan madaxweynuhu uu bixiyey magacay waa Cabdishakuur maxamed haya Cabdishakuur waxaan ka soo hadlayaa Qaahiro marka anuu raaligelintu bixiyey وهاجاك عبد الشكور وحاول ملينا اسمق لينين قاهرة كسو عيسى وحلقة باخد كاج إنه حياه لين كلا وجود بنا لكن نقول على عبد الشكور وما تصنته هلو هلو أهلا وسهلا ها ولا لا شنو السلام عليكم عبد حفيظ عليكم السلام ورحمة الله تي في ناقصي ولا السلام عليكم السلام ورحمة الله ولا لا واحد دوني يا عبد حفيظ نادي ديبتو si toosan ku maqlaa hawadana waa laga maqlaa magacaha xagee si joogto waxa la yiraahdaa Sahra hay Sahra maxaad jeceshahay tiraahdo walaal waxaan jecelahay Soomaali horta tu meel kale tagisa ma Allah isbaday laakiin tii waxa mashaakila nacab goortu raaligelinta madaxweynaha bixinayo haddiise uu raali ku yahay uu wax bixinayo muxuu cuna qabataynta kan la siin maayo kan kale la siin maayo muxuu adduunka oo dhan ugu diray kinaalkii Ethiopia ka soo xidhay wiil kinaalkii Ethiopia laakiin maanta raaligelin anag uma aragno waxaan u arkaynaa muxaarid iyo maxaafidku iska horkeenaya waa ninkan waa bido dadku iska horkeenaya ninkani dibba muxaaridka iyagii bale Farmaajo waxa kula soo shirtay noo sheeg
marka uu iska kayo hor keenaya Soomaaliland ma soo socoto laakiin tii dad jaara oo walaalo alla isbaday waan ahaanaynaa waa mahadsantahay thank you وحاجات لين كلام كحيجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو مقعة عبد الحفيد نلي هذا محمد شريف شراء سودو حاجة عجب خطبة مدحوينها markaan firkii ka dhibto khudbada madaxweyne Farmaajo runtii aad baan loo dhacay raaligelintuna waa wax wanaagsan Soomaaliduna dhammaantood waa dad walaala ah khaladkuna wuu dhacaa haba soo daahdee raaligelinta madaxweyne Farmaajo anigu fikraanteeda waxaan qabaa madaxweyne Soomaaliyeed wuuna haleelay inuu maanta raaligelin ka bixiyo arrintaas khalad ka dhacay dowladda dhexe Soomaaliya fikirkayguna waxa weeye dhammaan dad walaala ayaa leeyahay khaladkuna waa dhacaa khaladna wuxuu ku habban yahay in la saxo marka wixii dhacay xalay dhalay laga ahaado oo cafiskana walaalaheen ay laftoodu ka soo falceliyaan oo wanaag uga soo falceliyaan ayna qaataan waa rajeynaya insha allah bidnillahi kariim aad baan kugu mahad celinaya thank you waa hagaag leen kaloo ku xiga halo ahlan wasahlan walaal asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah waa kusoo dhaweynaya waxaan kasoo hadlayaa hargeysa waxaan rabaa barnaamijka inaan ka qayb galo magacaygu waa cabdiraxmaan waxaan taageersanahay arrinta maanta uu soo jeediyay madaxweynuhu aad baan ugu hambalyeynayaa madaxweynuhu maanta si fiican buu u hadlay oo wanaagsan in wanaag shacabku wanaagga inay qaataan weeye dad badan baa Soomaaliya dib gaadhi dad burbur baa dhacay marka madaxweynuhu aad buu ugu mahadsan yahay maanta arrintiisa soo jeediyey arrintaa waa taageersanahay aad baan u soo dhaweynayaa hagaag cabdiraxmaan hore wada cabdiraxmaan dhamayso wixii arrintii hore iyo burburkii hore iyo wixii hore Soomaaliya ka dhacay dhibaatooyin badan baa jiray marka madaxweynuhu uu ku mahadsan yahay aad baan ugu mahadcelinayaa waana salaamayaa idaacadda cabdiraxmaan from Hargeysa mahadsanid ra'yigaaga aad nala wadaagtay waa hagaag kaasoo cabdiraxmaan buu ahaa adiga ra'yiga ka dhex guuxaya waa maxay sida u aragtaa khudbadan dadka qaar ay u arkaan inay tahay mid soo daaday laakiin la soo dhaweynaya qaar dadka ay u arkaan inay tahay mid aan waxba ku oolahayn dadku qaar ay leeyihiin waa arrin geesinimo iyo go-aan leh loona baahnaa xilli hore inay timaado waana soo dhaweynaynaa waa maxay ra'yiga adiga kaa dhex guuxaya maxaase kaaga baxay khudbada halow asalaamu calaykum salaam waraxmatullah waa kuma ninkaas waa mustafa cali oo kasoo hadlaya sacuudi arabiya waxaan rabaa ina barnaamij ka qeyb qaata cabdixafiid la hadlo mustafa aad baan kuu soo dhaweynaya ahlan wasahlan online baan ahniya ma ku jira khadka si wacan toos baan kuu maqalnaa soo dhawow cabdixafiid horta waan ku salaamaya adiga universal t v ba kaa qaad nacam in badan baan ka soo jiray waan soo koobaya waxaan jeclay inaan laga goynin kaama goynayo ballan waa insha allah waxa weeye horta hadalkii maanta madaxweyne Farmaajo annagu waxaanu nahay Somaliland waxaan u aragnaa un malakaawaal uu doon inuu campaign ku galo wax shacabka reer Somaliland qancinayana ma aha Soomaali ishayso maanta leeyahay hay xafiistoona ma jirto Soomaali waa walaalahayo waxba ma hayno waanu macaamilnaa waanu isdhex joognaa meel walba waanu wada joognaa waxbaan wada cunnaa waxbaan wada qabsanaa marka taasaan jeclahay horta inaan kusoo gudbiyo sidan uu hataa hadalka u dhigay ilaa maanta isagoo weliba amar Ethiopia laga soo siiyey sidan uu dhigay ayaa maaragtay cadeynaysa inuu daacad ka ahayn amarkaas muxuu ahaa Mustafa amar baa lasoo siiyey laleeyahay cafis iyo maaragtay dadka soo dhaweeya wax aynkaasoo qorshe Ethiopia wadata ah marka raallo Mustafa waxaan rabaa inaan fursad ku siiyo waa arrin igu cusub weeye aanan ka warqabinin kolley adaa noo sheegi doona meeshaa ka keentay maxaa cafiska Soomaali inay iscafiso oo xoog yeelato oo cudud xoog badan ay yeelato danta ugu jirta Ethiopia maxay tahay waxa weeye horta Soomaali waxay ku hayso iscafinaysaa leeyahay iscafiya ma jirto Ethiopia haysta Abiy Ahmed ayaa raba inuu maaragtay sawir adduunka tuso Soomaali baan heshiisiinaya I got you now hay heshiisiyay aan shahaadada ugu qaatay wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliya ayaan dhexdhexaad ka noqonayaa budget baa lagu qaataa waxaan ay loo wada socono wada hadalka dhexdhexaad baa ka noqdo taasi waxa u taalaa madaxda Somaliland haday yeelayaan haday diidayaanba laakiinse Farmaajo
hadduu raaligelin wax ka bixinayo buuggiisii uu qoray ee uu xasuuqii somaliland loo geystay uu ka qoray ayaa raaligelin looga baahan yahay markan uu leeyahay snm iyo ciidamadii qoryaha sitay cudurdaar ha keenaan snm xaqudirir bay ahayd dadkeeda difaacaysay ciidamadii south africa laga keenay kuwii libiya laga keenay hargeysa lagu duqeynayay iyo burciyo berbera kuwaasaa loo baahan yahay maaragtay in raaligelin laga bixiyo cidda aan ishaynay ma ahayn maamul tegey oo leeyahay maamulkaas wuu tegey calan baa dadka leenayay calankiina maanta waa kan taagan ee buluuga ah calankaas mustaf calanku waa mara wax ma malaayo soomaan ciidan hub wataa leynay dadka calanku mara weeyaan soomaaliya ma soomaaliya annagu wixii naga dhexeeyey in adeerow wax dhammaaday weeye mustaf raallow ma raba arrinta inaad lixdankii iyo isku taggii inay halkaa ila aadimo doonayo mawduucayguna ma quseeyo waxaan rabaa inaa ii sheegtid waxaad tiri calankiina lagu laayay weli wuu taagan yahay calanku waa maro niman askara oo hub wata ayaa shicib soomaaliyeed laayay oo birmageyda ah marka ra'yigaaga halkaa ka ambaqaad adigoo mahadsan laakiin waa la isku tegey iyo maxaa la yidhahdaa waa la kala tegey mawduuceenu ma quseeyo soo dhawow dadka horta dhibaatada weyn waxay tahay koonfur waxaa ka dhaadhacsan waqooyi waxbuu tabanaya ama somaliland waxbay tabanaysaa somaliland wax alaala waxay tabanaysa maanta horta ma jirto somaliland xorriyaddeediiba dib loo soo noqotay laba dolo walaalaabay haddii alla leh aan wax tabanayno waxa weeye waxaan tabanayno wax xaqiraada la isxaqirayo oo walaalka aad magaciisii xaqiraysa walaalkaan marka iminka cabdixafiid baa haddaan kugu yeedha cabdicasiis dee iga yeeli mayso walaalkaa magaciisa horta u qir inuu jiro walaalkaa yahay qir dal kula mida inuu yahay qir dal shalayba kuu yimid inuu yahay qir intaa marka aada soo qirtid aynu markaa shantii soomaaliyeed wada baadhno shanta soomaaliyeed 3 baa maqan mayna walaalaheen hayn 3 maqani 3 maqan anigu haddaan ahay Soomaaliland mid baan keenayaa adna labada kala keen marka aan isku nimaadno shantii soomaaliyeed halkaan isku nimaadno markii horeba waxa loo midoobay Soomaaliyeed وهاك مصطفى waxaan u maleynayaa inaad waqti badan ku soo jirtay khadka telefoonka aadna ka cudur daarato tiriyaan la iga jarin waqti kugu filan aan ku siiyaan jecelahay ra'yigaagana waa soo gudbisay waa kelmadda ugu dambeysa adiga cabdixafiid ahaan adigoo iga raaliya shacabka reer Soomaaliland wuxuu ku yaqaanaan qof cunsuriya oo qoladii wariyaashii maanta Amnesty International ee ka hadlaysay ee dowladda federaalka lacagtiisa maamulka universal saasan u sheegaya inaad adiga shakhsi ahaan aad ka mid tahay ayaanu aaminsanahay haddaan nahay shacabka reer Somaliland waayo wareysiyadaada hadalkaagu mar walba siduu u dhaco intaasaan anagu horta aanu isla wada garanay taana de inaad ogaatid waxa la kulay xanti ma ogeen inaad taana ogaatid baa ku fiican waa mahadsantahay Mustaf ra'yigaaga weeye waa soo dhaweynayaa adigii inta kula ra'yiga oo qabta ra'yigaasna waa soo dhaweynayaa xaq baan u leeyahay ra'yiga aamintaan inuu sax yahay iyo inuu run yahay hadalkaas waxa weeye time will tell waxaan jeclahay hoosta ka xariiqo cid aan cugdad u qabo iyo cid aan nacabahay iyo cid aan ka soo horjeeda ma jiro ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo deegaan walba ay ku nooshahay iyo calan walba ay sidato hal qoys oo qura ay yihiin kulligeena waa walaalahay ama Soomaaliland ka soo jeed ama koonfur galbeed ka soo jeed ama ka soo jeed meesha la yiraahdo Soomaali galbeed marka taas waa ka shaafinaya inaad qaadatid in kala hawladay ku taalo weey maalin baa imaan doonto kulligeena la xisaabinayo oo Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo reer hebel iyo qoysas aysan waxba taraynin ninkii geesiyo maalinta badbaada unbay guushu la jirtaa ciidan wuxuu qabo ma jirto kulligeena cafis baa iga tihiin وهاجاج فيلمان لسه جرجرة أنت بدن ذاتك الله دارا أو إن يلا لقى سو جرجرة ويلا يرى يوتيوب كجوجا أي صور جليان ويرهدان هبل واكن لكن عد عن عقدة قبة أم حمان قبة مجرت أم سومال لانك سوجد أم كونفور لانك سوجد كاس مصطفى هاي الداوودان جعله هجيله هي هذا أنت كل رأيك هذا أنت كقول من أخذت كلو كحيجة هلاو هلو أقصده وين ولا المجاعة مجاعة عبد الله حسن oo joogo magaalada Muqdisho soo Abdullah waa dhawahay waxaan salaamayaa adigoo barnaamijka daadiis marka xigto waxaan rabaa inaan ka hadlo arintii oo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland ee ku kulmeen dalka Kenya marka arintaasi waa arin wanaagsan oo madaxweynaha Soomaaliya guul Soomaalida shanta Soomaali guul u soo hoyay marka lama xaqiri karo madaxweynaha waa
sidoo wuxuu ka fikirayaa soomaalinimo meel walbay joogto oo dantoodii waxooda ka shaqeynayaa marka in sidii madaxdii hore oo dalka soo marta oo kaleeto in loola xisaabtamo oo laga aaminsan yahay fikirkii madaxdii hore soo martay aniga waxaan aaminsanahay inay jirin oo wixii hore soo dhammaadeen tanna hadda oo farmaajo uu ku taagan yahay waa mid oo guul soomaali usoo hoyanaysa marka ra-iisul wasaaraha waa aragta hadda soo ula shaqeynayo xukuumaddiisa tilaabo walbay qaadayso hal nin oo kasoo horjeesanayo mase qabiilkiisa mase meel kaleeto dana u khaasay ka fogsanayo oo dhan waa iska fogeeyey waxa hadda oo aan isdhihi karano dadkan siyaasadda farmaajo iyo nabadii nolol neceb waa dad yani almarukaan cabdulaahi we're not dealing with nabad iyo nolol kamaana hadlayna nabad iyo nolol iyo siyaasadooda waxaan ka hadlayna khudbadii madaxweyne cabdulaahi farmaajo maanta uu sheeshay uu jeediyey uu kaga hadlayey tacadiyadii iyo dhibaatadii ka dhacday gobolada somalilan ee shacabka soomaalida birmageeda lagu laayay dowladdii militarigaana laysay cabaar baan ku dhegeysanaya waxaan islahaa fahan meeshu hadalkiisa u socdo laakiin waxaan moodaa xoogaa yar aan isla qabsan la-nahay adoo muqdisho jooga inaan soo wacdid aada iyo aad baan kugu mahad celinaya cabdulaahi guuleyso walaal waa mahadsanta layn kaloo ku xiga halow asalaamu calaykum aad baan kusoo dhaweyn calaykum salam raxmatullah cabdiraxmaan sheekh maxamed weeyaan kasoo hadlay london aad baan kusoo dhaweyn mudane walaal aada iyo aad barnaamijka u fiican yahay waan la socday barnaamijka aad baan maaragtay ugu faraxsanahay madaxweynaha farmaajo arrintan ku dhaqaaqay arrintan waxa weeye waa arrin ay tusaale ay maaragtay qof walba ay u baahan tahay inay ku qaadato waxaan kaloo soo dhaweynayaa dadkeena somaliland ayaguna sidoo kale ay aqbaleen kulanka madaxweynehena farmaajo ama madaxweynaha soomaaliya oo dhan uu hadda u taagan yahay marka arrintan waxay u furaysaa wadadii ay dadkii qalbi isku furi lahaayeen aad iyo aad baan taageersanahay waxaan kaloo raacinayaa dadkii kale oo ayagana maaragtay qaladaad ku galeen inay kasoo laabtaan marka waa arrin aad iyo aad lagu farxo oo maaragtay qof walba ay tusaale u noqonayso sidaasaan maaragtay aan kusoo raacinaya fikradeeda cabdiraxmaan mahadsani thank you from london layn kaloo ku xiga jaan u gudubna halow halo halo maqlaysa walaal aad baan ku maqlaa walaal soo dhawow magaca axmed yaasin khaliif weeye waxaan kasoo hadlayaa waddanka norway aad baan kusoo dhawaay mudane cabdixaafido aad iyo aad baan walaal kuu salaamayaa intaa hadalka la gelin horta waxaan jecelahay inaan caddeeyo kolley shaksi reer somaliland baan ahay oo in wado walaal wado ku maqlaa ha waxaan doonayaa inaan caddeeyo dee inaanan horta anigu la qabin walaalkay mustafa iga horreeyey inaad shaksi cunsuriya tahay waxaan aaminsanahay inaad tahay nin saxafi oo dee kolley shaqadiisa ka adag haddii wareysiyadaadu ay adag yihiinna kolley de waa waxa ay shaqadaadu tahay weeyi taas wataa talabaad waxa weeye laba qodob oo kale aan doonaya iyagana inaan caddeeyo mid wuxuu ahaa waxaa tidhi madaxweyne farmaajo waa madaxweynihii u horreeyey ee isagu raaligelin bixiya ama arrintaasi ka hadla kolley niyow dee youtube-yadana waa laga helayaa waxaan arki jiray muxuu ahay xasan sheekh maxamuud madaxweynihii ka horreeyey oo wareysi uu siinayay v o a da cabdiraxmaan yabro uu ka qaaday isaguna arrintaasi ka hadlayey oo weliba aan isleeyahay sida uu uga hadlayay way ka miisaan cuslaydeen sidan maanta farmaajo uu hadlayey arrintan haddaan usoo noqdo farmaajo horta waan soo dhaweynayaa aadna waan u bogaadinayaa in dee lagu dhiiraday in laga hadlo maanta arrintaa dhacday laakiin waxaan isleeyahay waxoogaa weyd bay ahayd sida loo hadlayay waxyaabaha weydda hadalka ka dhigayeyna waxaa kamid ah kolley terminologiga iyo ereyada la isticmaalayey madaxweyne wuxuu sheegay ama uu isticmaalay ereyga dhib ayaa dhacday de meeshana walaal waxa weeyaan sida la og yahay waxa dhacay wuxuu ahaa xasuuq aada u culus oo de si systematiga u dhaci jiray buu ahaa oo dad hataa qaarkood ay
ciidamada ku jiraan inta ciidamada laga soo ururiyo dili jiray 31 May 1980 markii diyaaraduhu ay duqeynayeen magaalada Hargeysa ciidan guuto SNM ba magaalada soo gashay marka guutadii baa magaaladii laga saari kari waayay dabitana waxa amar lagu bixiyay in magaalada iyo ciidanka soo galayba la isku burburiyo magaaladan oo dhowr boqol oo kun oo qof ku nool yihiin baa mar kaliya muxuu ahaayay hubkii difaaci lahaa iyo gantaalihii iyo muxuu ahaayay diyaaradihiiba iyada hoos loogu soo foorariyay iyadoo xataa digniin dadka la siinaan la dhihin muxuu ahaayay weerar baa lagu soo aaday magaalada laga baxo oo dadkii wixii ka carari karayay baa ka cararay wixii kalena ay halkaa ku dhinteen arrintaasi xasuuq bay ahayd madaxweynuhu markaa haddii uu raaligelin halkaa ka bixinayo waxay ahayd inuu ku dhiirado ereyga xasuuq amase gumaad baa dhacay uu yidhaahdo sidee raganimo leh oo halkaasi uga hadlo ma yeelin taasi arrinta labaad ee jirta hadalka weyda ka dhigaysa iyaduna waxa weeyaan kelmadan laakiin la yidhaahdo carabtu waxay yidhahdaan dee wixii ka horreeyey oo dhan way dishaa marka madaxweynuhu wuxuu raaciyey markuu raaligelintaa bixiyey qolyihii dhinaca kale ahaa iyaguna garowshii ha bixiyaan oo raaligelin kale ha bixiyeen waxay markaa u dhacaysaa hadalkaasi oo ay xoojinaysaa unda kole buugga uu qoray madaxweyne Farmaajo markii waxbarashadiisa uu dhameynayay wuxuu ku sheegay in dadka dhintay ay crossfire ay ku dhinteen ama xabad isweydaarsanayay sidaana ma aha runtu oo dee dadkii ku dhintay markii SNM iyo ciidamadu ay dagaalamayeen maha waxa laga hadlayaa laakiin waa dadkii magaalada markii dadkii shacabka ahaa ee magaalada lagu duqeeyay kuwii kale sida xeebta jasiiro oo kale lagu laayay dad ciidamada ka mid ahaayo hayb ahaan loo laayay maaha markaas wax crossfire ku dhintay laakiin wadadeen muxuu ahaayay toos loo abaaray iyadoo haybta ay darteed la adeegsan magartay waxaan u maleynayaa waqti badan oo kugu filan aan ku siiyey waa kaaga mahad celinayaa ka qayb qaadashadaada iyo aragtida aniga adiga aaminsan tahay Mustaf oo ka horeeyayna ra'yigiisa oo ku tixgelinaynaa maxaa yeelay qof walba sibuu wax u arkaa labadiina waa idin mahad celinayaa labadiina guuleysta leen kale oo ku xigaalow calaykum asalaam walaal soo dhowow hawa ku salaamay cabdixaafid oo ku salaamay aad baa kaaga qaadaysan walaala waxaan dhagaysanayay nin hadeerto wax dayramadii imika hadlayay iyo gabadhii ka horreeyey oo lahaa gobolada dhexdeed baa lagu layo qaar Soomaaliland lay wixii la islaayay oo dhan horta wixii dhacay way dhaceen waa saas waa wada wax dhacay lama soo qabanayo qadarka Ilaahayna way ku dhaceen secondly waxa la isku daraa Soomaaliya way rugmatiyo Soomaaliba way isbedeshiyo Soomaaliland way cabanaysaa un baa la yiraahdaa markasta ma ogtahay maxaa la yiraahdaa yani Soomaaliland markasta way cabataa waa reerla wada waa ku maqlaa Hargeysa Burciya barbarakii ka dhacday ma ahayn dagaal caadi ah dad qaxay imika anigu xaafadan aan deganahay dhowr iyo 10 reer oo aagoona oo caruurahooda diyaaradda nimankii dhalay diyaaradda layso qaar caloosha ku jireen yani ma ahayn waxaan dagaal caadi ah iyo dawlad wax dishay wax caadi ah ma ahayn Suuriya wax caalamka diyaarad ku rusheeyay dadkeeda jirto imika rusheeyay 3 sano kadib Soomaaliya intay South Africa u soo kareystay dadkeedii dawladdii tagaskeedii intay diyaarado ku soo kareystay South Africa bay dadkii oo qaxay xuduudka Itoobiya galabay kaga daba tageen ku garaacay walaalo koobay waxaas yani maaha waxa lagu hadlo iyo Soomaali way istishay Soomaalidu iyada istishay dawladii ma dirin markii dawladda si aad ratagtay iyada Soomaaliya istishay ma garanaysaa laakiin dadka waqooyi jooga dawladdii baa dishay oo diyaarada ku dishay sil caadi mar intaadan soo garaacin ka hor xoogaa ka hor baa arrintaas aan u malaynaya inaan hoosta ka xariiqay oo aysan ahayn marka la yidhahdo Soomaali baa isdisay Soomaalidu waxay isku dishaa qabaa'ilo xoolay kala dhacaan biyo meel ku jira daaqsin waxyaalahaas ay isku laayaan Soomaalidu iyo qabyaalad welina waa socotaa laakiin waxaan ka hadlaynay waxay ahayd madaxweynuhuna ka hadlayay dowladdii military ee dhibaatada iyadu geysatay marka adigoo soo koobaya si aan fursad kale kuu siiyo maadaama aad ku celisay waxaan horey nilay maxaad jeceshan aad uga baxdayd waxaan uga jecelahay waxaan yani markii siyaad barabaxay Soomaalida iyada dib isu dishaan ka wareed dawladii ma dilin laakiin dadka dawladii baa dishay ma fahantay waa gartay waa different way laba Soomaaliba rugmatiyo Soomaaliba baaba'dayo dadka dawladeedii baa diyaarado soo ka caalamka dawlad dadkeeda diyaarado soo kareysay inta adduunyada joognay Suuriya baynu ku aragnay waa gartay waa hagaag aad baan kugu mahad celinayaa qayb qaadashadaada thank you guuleyso waa hagaag leen kale ku xiga daan gudubno
Hello. Hello. waan ku maqlayaa walaal. aad baan kusoo dhaweynaya. qof kala hadlaya. si toosaan kuu maqlaa walaal, soo dhawow magaca. magacayga hodan badeeda walaal. aad baan kusoo dhaweynaya, maxaa jeceshaana tirada walaal? waan ku salaamayaa adiga kowdhe. aad baan kaga qaaday. hadalkaagu wuu igu soo noqnoqonaya, maxaa dhacay? si waadixan anigu kuu maqlaa oo aad u wanaagsan, horey u gudagal wado insha allah. haddaan ku maqli waayaan kuu sheegaya. horta intaanan arrinta kale intaan u gelin adiga cafis baan ku weydiisanaya. adiga dadka kuwa cunsuriinta kugu sheegaan ka mid ah anigu ya waa gartay, waxba kuuma qabo walaal. adiga ama dad kale oo yidhi cabdixafiid waa cunsuri oo aanan weligay arki doonin maqli doonin na waxaan jeclahay in ayagana ogaadaan inaan cafis iga yihiin. adigana cafis baan kaa ahay, adna cafis baan iga tahay insha allah. dhib ma lahan, horey u soco. maxaad jeceshaana tirada marka? walaalo hadalkii madaxweynaha soomaaliya haddaan u galo madaxweynaha soomaaliya horta dhaliishiisa in la sheego ma ogoshahay mise waxunba doonaysaa keliya intaa in laga hadlo? tv-gan universal waa t v xor ah, ra'yigaaga xor baa u tahay. wixii kaaga baxay hadalkiisa oo mawduuceena quseeya oo dhaliilood aragtid dusha ka saar, waanu soo dhaweynayna. okay madaxweyne farmaajo hadda 3 sanadood buu wadanka haystay. sanadkii afraad baa hadda u bilaabayaan u malaynaya hadda. waa saas. 3 sano somaliland dagaal buu ku waday. marka runta laga hadlo somaliland dagaal xoog ku waday. hadday media tahay, hadday jabhada tahay, hadday dadu lacag siiyo oo dhalinyaro tahay, dagaal xoog, iyo hadday hawadii tahay, hadday xoolihii tahay, hadday tahay lacagtii caawimada tahay, dhinac walba weerar buu somaliland kaga qaaday. marka somaliland iyo shacabkeedu markii hore way soo dhaweeyeen. runta marka laga hadlo markii la doortay waa la soo dhaweeyey oo dadka shacabka si fiican bay u soo dhaweeyeen. laakiin colaad buu tusay, colaad xun buu tusay. colaadii uu tusayna ta maanta uu ku hadlay, hadalku maanta ku hadlay waxba kama dhaqayso, waxba kama ma ka bedelayso. hadduu markii u horeysay dee meesha qabsaday uu hadalkaa oo dhihi lahaa waxba la isla meel dhigi lahaa. laakiin markuu dagaal gees walba kaga soo qaaday, uu dhibaato kasta soo mariyey, ayaan iminka odhanayaa khalad bay ahayd. wixii waagaas hataa waxa u daray nimankii uu u magacaabay wadahadalada somaliland iyo soomaaliya ayaa khalad weyn sameeyey oo lahaa in la xasuuqo waxay ahayd gar. marka taasna iyana dhibteeday lahayd oo dhibaato waxay soo kicisayba kicisay. waa gartay ayay soo kicisay. waa gartay walaal, waqti badan baan ku siiyaa u malaynayaa. warkaaguna waa cad yahay, hadalkii madaxweynaha kuma qanacsanid. dhibaato badan in yar baan ku darsanaya. go ahead. farmaajo waxaan leeyahay marka aad wadankaad xukumaysa markay dhibaata kaaga kacdo somaliland dabdamisa ka dhigan aad ku baktiiso, arrimaha kale aad soomaaliya ka wada aad ku baktiisa ha ka dhigan. waa gartay, aad baa umahadsan tahay, guuleyso. layn kaloo ku xiga haddaan u gudubna. halo halo. asalaamu calaykum. calaykum assalam waraxmatullahi walaal, soo dhawow. waa dhowha walaal. horey gudagal magaca? magacayga waxaa la yidhaha calleere wey walaal, oo kasoo hadlaya magaalada Suudan. magaalada Kontobneega ee Suudan. walaal waxaan rabay horta madaxweyne Farmaajo maasha Allah horta wuu ku quman yahay, yani isaga doorkii uu kaga aadanaa buu ka hadlay, waana ku mahadsan yahay. laakiin waxaa iscafinayaa ma ahan in macnaha la yidhaahdo koonfurta waqooyiga ha cafisto. waxa weye ummadoo dhan in iscafisto weye. na wax ma hadlayne xukuumad markaas jirtay ayaa wax hadlaysay. saas. iyo markaas xukuumaddii dadkii ka amar qaadanayay. marka midda kaleeto walaalaheen reer waqooyi ha ogaadeen in koonfurta haddii loo eego koonfurta wax hadlaysay, in koonfurta keligiisa wax hadlaynina waqooyiga laftiisu uu haleeyey.
sidaa la socotid in muddaa waxaa la sheegaa in la yidhahdo xawaalo wadareed baa la helay oo xawaalo wadareedka waxaan aaminsanahay ragga soo saaraya xawaalo wadareed ayagu ogaayeen oo qayb ay ka ahaayeen inay soo saareen see ku ogaatay arrintaas adigu waxaan ku ogaaday dee dadkii goobjoogu ahaa oo dadkii la laayay ka haray oo dadkii yacni sidaa la socoto waxaa jirta askar ka soo horjeeday ummadii markaas jirtay falkii ay samaynaysay oo maciin baday in ay dhanka la laynhayay oo diyaaradaha lagu duqeynhayay u cararaan dadkii ay soo maciin badeenna ay ku soo jeesteen oo ay maganta u ahaayeen sida la socoto aagga boorame waa og tahay dad badan baa lagu laayay oo aniga la kulmay yacni dadkaas ehelkooda ahaa oo hadda marka u kaaday wax yar waxaan rabaa inaan si wacan isku fahanay insha allahu tacaala kaa jari maayo haddii la yidhaahdo laakiin aan ku fahmaan doonaya hadalkaaga sidaan u fahmay baan rabaa inaan u sheego haddaan khaldanahay ii sheeg waxaa leedahay jamhaddii SNM dad ka tirsanaabaa dad laayay oo ayago laftooda dhibaatay geysan saas miyaa ujeedada hadalkaaga waa sidaas ha xabaalwadareedkuna ma jiraa leedahay soo ma qaybbay ku lahaayeen qaybbay ku lahaayeen waa hagaag qaybbay ku lahaayeen hold it right there ka soo qaad in la iska indhatirana aan isla qaybsanno saan isku maqalna insha allah raalli noqo waqti baan ku siinayaa ra'yigaa inaan ogaadaan doonaya ka soo qaad sidaad iminka wax u sheegaysay inay u jiraan oo adigu waad sa hadalka u tiri adaan kuu raaca hadalkaas oo dhibaatadaas ay geysteen xabaal wadareedkana ayagu qayb ay ka ahaayeen how do you therefore justify dowladdu inay diyaarado kiciso shacab soomaaliyeed ay ku baabi'iso isla mar ahaantaana tacdiyadii intaa la eg ay ka geysato dadkii hantiday lahaayeen lagu laayay iyo ciidan yara oo raxan ah ama 100 ah ama 2 ah oo hub watay oo saad hadalka u dhigtay ayagu dad laayay sidee labadaa waxyaalood isugu barbar dhigtay oo aad ka dhigtay laba wax oo isku dhow sidaa awgeed labaduba waa khaldan inaa u leedahay macnaheedu ma inaan ku leeyahay waa saxsan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan binbonjagareeyo ra'yigaaga meesha u socdo cabdixaafid waa mahadsan tahay walaal hortay sida caalamka o dhan bay ka dhacda in xukuumo dad ay diyaarado u adeegsato ama se waxa ka liiso ay kiimka u adeegsato way ka dhacda caalamka o dhan igu celi halkaa xukuumadduna way qaldane xukuumadduna way hadalkayga ifaham walaal macana hadalkayga waxaan ula jeedaa oo yacni waan ula jeedaa waxa weeye xukuumadduna way qaldaneed dadkii yacni markaas kasoo horjeedaan way qaldanaayeen marka in badan mar walba waxa laga hadlaa laakiin brother nin walbaana ku nool iikaadi koonfurna wax ma hadlaynin halo walaal cami iikaadi cid ka hadlaysa koonfur soo duushay oo waqooyi kusoo duushay ma jirto waxaan u malaya barnaamijka dib baa kala qabsatay that is not all we talking about now dib baan rabaa inaan kuugu celiyo dowladdii waxay kicisay diyaaradihii lagula dagaalami lahaa wadamada jaarka dhibaato iyo dadkeena ku haya iyo cadowga ummadda soomaaliyeed kusoo duula waxa ayna diyaaradaha ku rushaysay shacab soomaaliyeed oo birmageyda ah jamhaddii SNM waa saa adigu hadalka u dhigtay dad bay laysay ayagoo laftigooda laga yaabo saad u sheegtay inay ahayn askar dhinaca kale oo carartay xabaalwadareedkana ayagaa ogaa dowladdii haddii ay dadka laysay oo ummadda intaa la eg oo masaakiinta oo dhibaatada intaa la eg ay u geysteen ay ku samaysay iyo jamhaddu waxay geysatay sidee bay awood maadaama iska mid ka ahayn military ahaan maadaama aysan isku mid ka ahayn cududda military oo ay haystaan iyo ciidanka aysan iska mid ka ahayn ilaan SNM ma aysan wadanin diyaaradaha maxaa wax lagu duqeeye macnahayguna ma haynan SNM difaacayo laakiin waxaan rabaa dhibka dowladdu geysatay iyo dhibkan inaadan isbarbar dhiginin oo aadan ka dhigin laba waxyaalood isku mid ah oon la oranin hal ilooba maxaa yeelay haddii walaalka ama aabbaha la dili lahaa waxaa laga yaabaa inaan si kale u hadli lahayd soo maha waa runta hortay xukuumaddu way qaldaneed laakiin waxaan kuu sheegayaa reer macnaha somaliland ama reer waqooyi laftoodu isbarbar yani dadka isku danin yani magaca la yidhaahdo koonfurta ayaa nalaysa ah in meesha laga saaro ay xukuumaddii markaas jirta way oran karaan yani beeshii markaa waddanka xukumaysay uu ka soo jeeda markaas yani rejiimkii waddanka xukumayay way dhihi karaan yani ayaa nalaysay laakiin iyo oranin yani waxaana laayay koonfurta nalaysay macnaha waa hagaag waxaan u malaynayaa inaan meeshii kusoo noqonay
waxaan isku dadka adiga soo wacay iyo tv-ga iyo hawsha socota iyo xaaladda lasoo maray marka la fiirsho waxay ummaddu isku waafaqsan tahay inaysan jirin in waqooyi iyo koonfur isku duulay iyo shicib soomaalidu islaayay dowlad ayaa dad shiciba laysay la dagaalamaysay jamhaddaas disproportionately and that is meesha mushkiladu ay ka jirto awood xoog badan bay dowladdu isticmaashay aysan jamhaddu lahayn hadday jamhaddu dambi geysatay maxkamadaha lasoo istaajiyay sida dowladda kale askarta dowladda loo soo istaajinayo waa ku mahad celinayaa waqti badan baan ku siiyey si aan ra'yigaaga ogaado thank you guulaysa laynka ku xiga halo asalaamu calaykum kusoo dhaweyna wacalaykum asalaam aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa sharmaarka yuusuf xumo kasoo hadlaya hargeysa waxaan doonayaa inaan maaragtay barnaamijka ka qayb qaato waa garta aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta walaal qof goobjooguma xaaladda ka warrama ko anigu dadkii hargeysa ka qaxay ee muqdisho u qaxay haddana muqdisho kasoo noqday haddana hargeysa ku nool baan ka mid ahay nimayow anigu fikirkan ka duwan baan qabaa soo dhawow waxani way dhaceen sidee wax u dhaceenna lama yidhaahdo waa garta yacni see xeega xeega ku noqotaa ilkana ku nabad galaan soomaaliya dhibkii dhacay iyo dhibaatada dhacday iyo markaad banaanka u baxdo mushkiladda taala waxaa ka qurux badan in wanaag wax lagu doono waa garta wanaaggaas oo ah inaynu soomaali weyn awood le aynu helno sidaynu ku heli karnaa weeye inanka muqdisho joogaa markuu aaminsan yahay inuu aniga ay xukumo aniguna aan isaga u ahay kii uu markaa maaragtay xukumayey aniguna aan ahay kii isaga kana awood badnaa kana maskax badnaa sidee loo heli karayaa waxay aniga igula muuqataa tanaasul badan in labada dhinacba laga helo maxaa ku talinaysaa marka waxaan anigu ku talinayaa fikriyan qaabiyan in laba meelood wax loo qaybsado ayna horta marka hore la ogolaa yani go-aanka miiska la soo saaro oo la yidhaahdo laba meelood oo isku nimi waynu ahayne halkeenni hore inagu celiya oo ah soomaali weyn iyo somaliland labadaasaan anigu aad iyo aad u aaminsanahay wax allaali wixii dhintay iyo dhibkii dhacay iyo haddii la yidhaahdo yacni umuladooxun bay noqonaysaa umuladoocna qanaacad laga gaadhi maayo ku mahad celinaya xilligan adoo hargeysa jooga inaad barnaamijka nagala qayb qaadatay thank you ra'yigaagana soo dhaweynna waa ku mahad celinaya walaal thank you hagaag dhowr qof baan fursad siinayaa dabadeedna waanu ku kala tegina haddii la yidhaahdo bal 4 qof aan fursad siiya halo waa ku soo dhaweyna walaal السلام عليكم salaam waraxmatullah soo dhawow waxaan jecelahay inaan ra'yigayga ka dhiibto mawduuca magaranaysaa madaxweynaha soomaaliya oo bixiyey afki weydiistay anigu waxaan qabaa madaxweynaha soomaaliya halo waa ku maqlaa walaal hore wada u gudagal wado madaxweynaha soomaaliya ra'yigiisu dee waa macaruf oo 3 sano joogay waxa uu ka qabo somalilandna waa macaruf iyo mawaaqiftiisa alaa loo sheegay waxaa lagu tilmaamay haddii oxygenka ka xidhi kari lahaa uu ka xidhi lahaa marka dowladda laga caawinayay keedii umuu qabaa un ra'yigeedii uu difaacayaa inuu soo celiyuu doonayaa marka anigu waxaan odhan lahaa soomaaliya iyo somaliland wax dhibaato ka dhexaysa ma jirto laba dowladood weeye wadcigoodii hore ay soo ceshadeen ka horreysay midnimada wixii dhacada oo dhan annagu waan iska ilownayba aan si nabadgelin labaan loo antaa nabadgal annagu haddaa xitaa timaadaan oo tiraahaan dowladdii oo dhan baanu keenay aqbali mayno in isnabadgelin unba wax kaloo naga dhexaysa ma jirte talabaad waxa weeye soomaali weyn baan maqlayay sheekada magaca soomaali weyn waxaad moodaa erebixinteena aada u qaldan tahay inay reer soomaaliya ama soomaaliya talyaanigu ay kelmada magaranaysaa iyagu sheegtaan taasina waa qalad weyn maxay soomaali weyn ku qaldan tahay walaal waxay ku qaldan tahay kelmada soomaali weyn waxay ka timi somaliland bay ka timi markay doonayeen gobonimada inay shanta soomaaliyeed isu keenaan iyagaa keenay sheekadan taa waxaa u daliila waxaa lala wixii suugaana ee la tirin jiray soomaali hargeysa ka soo baxa marka shanta soomaaliyeed bay khusaysaa soomaali weyn waxaa la yidhaahaa dhulka soomaaliya iyo digto oo dhan shanta soomaaliyeed baa la yidhaahaa marka idinka waxaa la yidhahaa soomaalida talyaaniga
ama soomaaliya la yidhaha magacii talyaanigu idin bixiyey annana somaliland baana la yidhaha marka yara bixinta horta qaldina ma garan marka ii kaada cami haddii shanta soomaaliya marka la isku daro la yidhaahdo soomaali weyn la yidhaahdo welina soomaali aynu wada nahay meel kastoo aan joogniyo siyaasadda dhinac kastoo aad ka joogtidba inaad adna soomaali tahay adna soomaali ahay oo marka la isku daro soomaali aan wada nahay maxaa diiday soomaali weyn waa siyaasi baan waa great Soomaaliya wixii loo oran jiray great Soomaaliya markaas taas waa si fashilantay qolo waliba dawlad goonaysa maanta madarata idinka Soomaaliya la yiraahdo marka inay been abuur ka sameeyaan ma fiican waa ku mahad celinaya thank you waa ku mahad celinaya thank you labada saddex qof oo dambeeyay halo السلام عليكم salaam xuseen soo dhaw mudane اوكي waa cabdi xafiid gudbiya waa cabdi xafiid weey soo dhaw اوكي waa salaam عليكم aad baa ku salaamay cabdi xafiid dibnaha u yara dhaweey adoo mahadsan waa ka qaar soo dhaw maxaan u dhaweeyaa telefoonka dibnaha u dhaweeysan ku maqlo اوكي hadda ma maqashaa si fiican اوكي horta marka hore waa ku salaamayaa waxa tahay wariyaha kaliya xaqiiqan si wanaagsan dadku wareysa hadalada cadna siiya marka kulaba shaqsiyaani waqti kuma arko qof usuriya 80% ama 90% dadka waqooyi kasoo jeeda ama Soomaaliland kuma arkan dad usuriya waa yaro kooban weyn xaqiiqada markaan ku sheegay ku shaarayso wada loo kuma qala fiican hore gudagal haddii aan hore u socdo arrinka farmaajo oo raaligelinta uu bixiyey waa soo dhaweynaynaa aniga kuley anigoo ciyaala meeshaas ka saxay qofka joogo baa garan kara waxaa waqtiga hadalka wixii ka dhacayay الحقيقة دي سيستم رجريبو oo lama oran karo reer ama koonfur ama cid kale ruuxeed meesha ka dhacday kiina hadduu ku dhigiraday kulley haddaan dadka Soomaaliya soo dhaweynaynaa waa in hore loogu sii socdaa marka Rwanda waxay wax ka daran baa ka dhacay way ka heshiiyeen haddaan for example soo qaad waddanka Rwanda la yidhaahdo kale marka waxaan rajeynayaa insha Allah tacaala kulleyba marka waqooyiga sidii hore ma lihin waa iska dhaqanaysaa insha Allah because dee ma garan karaa dee 80 milyan oo in la saaran oo Ethiopiana ayaa midaysan marka Soomaaliya haddii la isku geejiyo 15 milyan ay tahay garmay wax kala hor jooga inay jiraan marka insha Allah khayr bay noqonaysaa koonfurna wax uma qabno cid ilaala cidaan qabsanayna oo dee waqtiga nool la garan mayna barun baa wanaagsan agarta marka system ku jirtay qaar waqooyi baa ku jiray qaar koonfur baa ku jiray marka arrinta ma oran karo marka insha Allah kulleyba waa laga gudbiyaa waa step wanaagsan oo geesnimo leh oo ku dhaqaaqay farmaajo agarta waa ku mahad celinaa walaal thank you waa kaaga mahad celinaa ra'yigaaga guuleyso wagaag laba qof baa u dambaysa aan mid siiya halow waxaan kusoo gabagabaynaa in Soomaali weyn la wada raadiyo waana mahadsan tahay saaxiib aniga kuma maqlanba waxaad sheegayso intaa keliya kaa maqlay soo dhawow maxaa leedahay magacaasi halow cabdi xaafid soo birow maxaa tiri kumaan maqlayna maxaa tiri soo dhawow magacaa magacayga cumar xasan aa la yiraahdaa waxaan ka soo hadlaa dalka Holland waxaan rabay inaan ka hadlo arrintan hadda horta marka hore waxaan kaaga mahad celinaa barnaamijka wanaagsan thank you cabdi xaafid waxaa jirta waxa waaye arrinta hadalka madaxweyne farmaajo uu yiri raaligelin laga bixiyo tacdiyadii dhacday hadalka raaligelinta uu ka bixiyo horta waa madaxweynihii dalka oo maanta hadduu ka bixiyana wax qalad oo hadda wax weyn ma aha teeda kalena arrintan oo laga dhigayo xukuumaddii maxamed siyaad bare inay koonfur keliya ahayd ma ahayn xukuumaddii Soomaali weyn oo dhan ay ahayd nimankan gobolada waqooyi ka soo jeedo ayagaba saraakiil ka tirsan ayaa xukuumadda ku jiray oo dagaalkan kula jiray waxaa wanaagsan wixii dhacay oo labada dhinacba in maanta la iska iloobo maanta koonfurna waa aragtay marxaladda ay marayso waqooyina maanta marxaladda ay ku jirto waad u jeedaa marka waxaasoo dhan ka fiican in Soomaali weyn la raadiyo wixii dhacay laga wada xaladhalay laga wada noqdo kadibna sidii Soomaalida kale loo soo wada aruurin lahaa shanta Soomaaliyeed la isu keeni lahaa ayaa ila fiican
marka in lis xagxagto oo la yiraahdo koonfuray ay xukuumaddii maxamed siyaad bare allah u naxariisto ay ahayd taasi waa qalad waayo xukuumaddaas jamhuuriyadoo dhan ay gacanta ku haysay ama waqooyi ahaw ama koonfur ahaw qofay u aabayeelaysna ma lahayn qofkii xukuumaddaas danteeda ka soo horjeedo way la dagaalaysay markii kale dhinaca kalena aad ka fiiriso xukuumadda dalka ayay mas-uul ka ahayd haddii dalka qayb ka mid ah laga soo weeraro way difaacaysaa dalkana way ilaalinaysaa nimankan snmta ay yidhaahdaan awood yaray la soo galeen way baabi'iyeen dadkoodii waayo annaga horta sideeda waxaa la yidhaahdaa qof guri oo miraayad ku jiro dhagax ma tuuro sababtoo ah ayaga waxay ahayd inay xaafadahooda ka baxaan ee banaanka ay rabaan inay kula dagaalamaan ma ahayn inay guryaha ay soo galaan halkaa u kaala camay cabaar baa hadlaysay aan kaa soo dhex galo muraayaday dadku jiraan oo waxay suuraan jamhad baa soo gashay nidaamka la dagaalamaysay mushkiladu ma aha jamhaddu inay dagaalamaysay mushkiladu waxa weeye awoodda military ee dowladdu ay lahayd ay u isticmaashay shacibka Soomaaliyeed ee dhibaatada inta leeg ay soo gaadhay hore ayaa nin horta u soo wacay aan ugu sheegay arrintan halkan uga wada hadalnay jamhado badan baa dalka ka jiray SNM baa ka mid ahayd SSDF baa ka horeysay UNC baa jirtay laakiin jamhadahanu ma aha jamhado awood military fara badan leh dad raxan ama kooxa ayay ahayn ugu badnaan boqolaal ama dhowr kun gaaraya in loo isticmaalo diyaaradii ay ayaga difaaci lahayd oo dalkooda iyo dadkooda difaaci lahayd iyo taangiyadii ama ha ka soo jeedaan waqooyi askarta hogaaminaysay ama koonfur ha ka soo jeedaan ama meeshay doonaan ka soo jeedaan ma way kuu muuqata maysan kuu muuqanin in raaligelin laga bixiyo disproportionate force-ka ay dowladdaas u isticmaashay shacabka Soomaaliyeed ee barmageedada hadday joogi lahaayeen baydhabo saas oo kale aan oran lahaa hadday joogi lahaayeen Puntland ama maxaa la yiraahdaa meel kale saas ay ahaan lahayd maxaa kale daarinta waa ku gartay cabdi xaafid waa ku gartay horta meesha shacab kaliya laguma xadsoobay ma fahamtay raaligelinta laga bixiyeyna wax horta oo fiican waaye oo inay Soomaali isu timaado oo ay isu tanaasusho waa wax fiican laakiin marka aad leedahay jabhad ayaa dalka soo weerartay dowladii diyaarado ayay ku qaaday dayuurada waxa waaye xukuumadda markaas jirtay dalka ayay difaacaysay sababtoo ah dalka cid walba ay soo weerarto waa inay hal su'aal aan ku weydiinaa waa ku dheeraanay aan ku soo koobo haddii adigu aad ka mid ahaan lahayd dadkii Hargeysa ama Burco joogay maalmahaas 80meeyadii oo dowladda ay maxay tahay diyaarad wax ku rushayso oo hooyada aabaha laba caruur oo kula dhashay iyo xaaskaagii madfac diyaarad soo riday ay xasuuqaan maxaad caawa oran lahayd horta waa qalad horeyna waa kuugu sheegay oo diyaaradaas la xasuuqay ama dadkaas shacabka la xasuuqay waa qalad waa ka soo horjeedaa waa ku mahadcelina walaalkay thank you waqtiga iga dhacay intaa ka bidi telefonka waa joojinaynaa saacad iyo xoogaa oo barnaamijkan ku jiray waa mahadsantihiin farsamada waa cabdixakiin fiqi barnaamijka waxaa idiin soo saaray cabdalla mudhir waxaa istuudiyaha nala jooga u mahadcelinayaa qayb weyn ka ahaa sheekheena sheekh cusmaan usuuli allaha barakeeye anigoo cabdixafiin maxamuud jaamac ayaa idinla socodsiinayey intaanu kanoo kale dib ugu kulmi doono ka tashada cadaawaha oo isku tiirsanaada goodbye